كل وقت وين قرية محن قرين تان كبدن السيوة برنامج السيوة نواجه لكن وقت وين قرية وجد وحن شعله هنا المعصري وجود بيشتغل ناس وقبته ولا معصرة تهريبك واحد يرتاح موسو ما صدان لده ما صدان مقعد واحد إلى حران هر هو ما صو كسبتان هنتي محن كل هذا دبعت ذا تهريب كلية كل متعلينا كوضا ورهمي كل قصة محن كل هذا حنون بدن أيو كباي كانوا كعرتي وحي هيد مالين أي بش وهاي تضبيط طبعا بشي أفراد لبضا كون يلحية طبعا واسيدا ورقة هذا كحسن قبل كانوا وقبل بقول يشتن يلا بعتن بيت محن كل هاي أما ميرس أنا هذا شفت ذا مركز شفت ذا waxay ku curatay qisar runtii aad u naxdin badan maalinta aan ku sheegay waxay ahayd maalin dad tahriibayaal oo aad u tiro badan ay ku dhinteen maxaan ku raayay Talyaaniga iyo maxaan ku raayay Suudaan dhexdooda waa maalin kulli dadka reer Burcaaw yaqaanaan Black Day oo macdanu yahay maalintii madoobay kulli maalin madoow ma aha oo maalin ka madoow baa jira maxaan ku raayay maalin madoow ay soo socdaan laakiin maalintaas waxay ahayd maalin xanuun badan baan oran karaa gaalada tahay waa Black Day iyo maxaan ku raayay wax noocaas adeegsata laakiin waxay maalin xanuun badan maalin dad badan geeriyoodeen maalin maxaan ku rahay intaan kulli anigu u soo joogay maalintii magaalada Burco maxaan ku rahay ugu geerida badnayd bay anigana waxay maalintii ugu maxaan ku rahay murugada badnayd run marka laga hadlo hadii la yiraahdo goorma kugu muruga badnayd maalintaas ahayd maalintaas waxay ahayd qisooyinka inta badan aad maxaan ku rahay xanuunka badnaa sababina ma san anigu waxay ahayd laba hooyo oo maxaan ku rahay is haysta oo isku haysta laba wiil oo ay dhaleen oo labaduba ay ku dhinteen badda labada wiil way israaceen waxaana ku dhinteen badda kadib waxa isku haystaan wiilkaaga ka haystay runtii waa wax aad looga qeyroodo laba qof oo labaduba rawaxeen ama dhinteen ay isku haystaan marka kulli waa dareemaysaa inay aad u maxaan ku aad u xanuun badan tahay waa dareemaysaa kadib qisooyinka iyo maxaan ku raay hadallo badan oo dadka igaga imanayay maxaan ku raay maxaa kugu dhacay jawigaagu ma saxsana ayaa runtii ma garanaysaa ay kulli maasadan ka curatay inta hore kulli anaas kaga waramaya siyaabihii ay ku dhalatay maxaan ku raay aniga dareenkayga anaas kaga waramaya bal halka aan ku suganahay iyo maxaan ku raay dhibta jirta ayana maasa ka waramaya maadaama ay waqti badan oo haysan kulli qisa aad u xanuun badan oo inaan ka waramayo aan jeclaan lahaa ahayd laakiin waa daa waqtigu noo kooban yahay si toos ah aynu gudagelayaa maasadan jiiftadan haraan har waxay ku bilaamaysaa haraan ku jira dhexdeeda hufbaanahay waa haraadan midhiyahoobaan hilaaca ayay huwan tahay taftaydo haddana omosbaa i haysta hoh iyo ciil baan la seexday hurdaan ku jira asqaysan indhaha baalkuba ma haysto ilmaa sida roobu hoortay adhaa loo horay hayaana iftiin may helin hadhkiisa habeen dumay baa abuurmay humaag beenaa hor jooga hoggooda hanfaa hor yaalla hagoogtuna geeri weeye hayiga noloshaa iliita harbaa igu taal jidhkayga halkaan shalay soo hawaartay hilaabta go'aan istuubay haddaan helinkii ka toosay haweenka dhintaan la heermay halyayga baxaa i daaray wuluushay hoggii hadeerto waxaan ahay ruux haraadan waxaan ahay ruux hallowsan waxaan ahay ruux hilmaansan halkuu mar ilaaha dhowto tahriibta intee hayaamay intee hawsare ka dhoofay hargeysa intee ka yaacay u gacan haadiyey wadkooda intee hawa bood ku leeday intee haajiray horweyna intee saxaraha ku hoomay intee gaajadu haleeshay intee habqantoo haraaday intee hadhay oo hallaabay haybtooda intee la waayay intee harqantoo hufbeeshay intee badda hoos u quustay intee hafatoo hinraagtay hunqaaco intee hiqleeyey haraan har naftii ka haaday intee gabadh heega moodo tintii gore iyo haldhaale intee kufsi loo haweysay sanweyn huguroo hagaasa hor iyo halaqiya masmoodo hugiisuna aad u liito muxuu hablihii ku heesay hoygiisa muxuu u qaatay harraatina qaar ku laayay maxay hufaya dabayli hareertii hore ka jiidhay hayaankuna uu iswaayay humaagu yeedhay muxuu dhidar hoobal caana hilbaysay raqtii dhallaanka intii hadhay haad ku quutay
maxaa hooyooyin hoogay runtii hanadkoogi waayey horaadka midkay jaqsiisay hobayda midkay u qaaday midkay habtay ee u heestay hogiisa midkay u maydhay hareerba hareer ka eegtay la yidhi maantuu hagoogtay badda haligtoo halaagtay maxay hurda seexan weyday maxay ilmadeedu hoortay hiqdeeda haween ku toosay maxaa hanti laga uruushay horweynta kuwii xaraashay hankoogu galbeed la haystay habeenoo idil hadraayey horgiya magafaa haleelay mas iyo halaq baa hiraabtay hadhkii hadhacuu u diiday inay hakadaan ma yeelin badh buu hoday oo halleeyey badh buu horay sii hulaaqay horaadka mid buu ka gooyey sidii hogor roob hilaacday keliyaa halistiyo macduunka wadnaahaba dhiiga hawle hib iyo hanadkii ka saaray dabeed haragoogi laalay intii hadhay may hadlaynin hayaydana may karaynin hadaadun hurdaa la mooday badyahay dhalintii halaagtay halyeeya maxaad harqooshay maxaad haadaan ka tuurtay maxaad hogag dheer u aasay maxaa hal abuur ku leeday badyahay hiirtaanya keenta badyahay dabka sii hulaaqda caloosha maxaad hugmaysay maxaad ciil ii horseeday maxaan hadrayaa habeenka hurdada magamee hiqleeyey heesaaga markaan xasuustay ka haajiray goobta hiilka intii huruday dhagayso habhaabadka huurka xeebta hufkiyo halis iyo hogbaaska hiniishis boqol laflaynta kuwii hantay hiilka waayey naftaaduna yay hibaysan hormaa hadhay waa habaare ninkii hebelmeeyey heedhe matafyo horor baa la haaday hirkii hawadaa la duulay allow dhalintaa sabowday allow hamigii ka dhoofay habaar ka heshiisu qaatay allow hoobaanta hawdka hoobtiyo hirqashada macaanka hidaha dhaqankeenna fiican allow ku hadee dhulkooga allow maansada haalayda intaan hadfin ee la haybin intaan hirigtaas ku hawmin u heelan habeen baxooda hiyiga ummadaas ka baaji maasaduna inta ugu dambaysa gabagabada aan lahay ilaahayow intii hore tagtahay inta damba ka baaji inta joogtana aan uga digayo ayaa kusoo koobaya maasadii tahriibtuna ee la magac baxday haraan har intaas ku koobanta maasad dareen laho qayre leh bay ahayd waxaanad leedahay dadkii dee wixii tegay waxa jooga ha kala hadhaanon annaguna waxaan leenahay inta joogtay ee aan guuli tahriibin ilaahay dalkooda ha jeclaysiiyo maxaan ku dhahday dhibtan iyo dalkan shisheeye dhibaatadiisa ha tuso qulubtooda iyo qalbiyadoodana ha soo jeediyo dhulkoodii hooyo si wax uga qabsadaan ay horumarkiisa uga qayb qaataan